xildhibaan maxamed daahiye waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doortay deegaanka Dadaab magaalada Gaarisa oo kamid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii gaari magaalada Muqdisho ee galabta dib ugu soo laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas oo dawladdu ay su'aalo ku weydiinaysay intaanan u guda galin waxyaabihii galabta aad la kulantay waxaan jeclaan lahaa xildhibaan marka hore maxay ahayd ujeedada aad u tagteen magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya yaad la kulanteen ujeedadiinu socdaalku u ahaa حمدي وأدب المحسنة كو هرت ولا سؤال كان هرت وحكوا جانا مقالة مقدشو وحانا أهان كوي تمن حلبان وكسو كليجة جارس وجار يمنديرا أنت والصومالي وأنا أهان وحانا أوقعنا ماشى إن أن لصو تشنو مسؤولين تدولة الصومالية خاصة هير فدرال ومدحينها الصومالية ووينهاي أسوي كلمة أنا لكلني والجدان أساسي هذا وحانا أرنتها كلفتي تبنبري كهر waxaan la kulnay madaxweynaha Kenya mudane Uhuru Kenyatta waxaana kala hadalnay amni darrada meesha ka jirta iyo arrimaha macallimiinta oo ka soo cararay gobolka hadda anaga aan ka soo jeedno Waqooyi Bari marka madaxweynaha hadalkiisa waxa ku jiray waxaan rabaa niman yahow dib iskugu noqda gobolladeena oo kaca soo tashada dadkiina soo tashkiila wax alla waxay idinku qaadan kartaan amniga si loo sugo lahaa warnaga soo siiya madaxweynaha Uhuru Kenyatta marka annaga waxaan doorbidnay aan isdhahnay shabaab saldhigooda iyo meeshay nooga soo duulaan waa Soomaaliya marka waxaan u aragnay maadaama dadkaasna ay yihiin dad Soomaali oo dhiig iyo dhaqan iyo luqadba aan wada iyo diinba aan wadaagno inaan dawladdaas la soo kulanno oo horta ayaga naftooda dhibaatada haystay waxyaalaha ay kula dayaan inaan wax ka ogaano kadibna aan la tashanno wixii sidaan wax uga qaban lahayn annagoo marka ayada Soomaali laba dhinacba ka soo jeedno marka arintan socdaalkana saas ku wajahna waa gartay marka xaq tagteen waxaad ii sheegtay inaad la kulanteen madaxweynaha dalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaad ka wada hadasheen xamdi run weeyaan xalay waxaan la kulanay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtiina aad bay noo soo dhaweysay dawladda Soomaaliyeed markaan garoonka ka degnay waxaana soo dhaweeyeen wasiiro kamid ah wasiirka cadaaladda مدن حسن وزير كدولمات كهوذا وزير محمد عبد الله سراد أكون معدر عمر يدد كلو فربضن أو حلال كهيان دولة دايدا مرتقات كاس دنا وحين لقى هوتيلك قد الشرف بنلو سوبيي كدي من واسكن السنة حال فيت جور أي تاي سديد في النمو يعني مدحتوده تغني مدحوينها مركا السجون السجهاي يعني ماشى تغني مركا كوي توان كأنجي iyo madaxweynaha qaranka yaa kulanay kulanka anaga runtii madaxweynaha aad buu noo soo dhaweey aad buu u farxay dad ka soo jeedo Kenya oo xildhibaaniin oo Soomaali ah oo inta dhanna waligiis la musan kulmin arintan u soconayna waan u sheegnay runtii aad buu farxay una soo dhaweey wixii aan oo la tagnay runtii wuna la qaatay warbixin dheer buu naga siiyay macnaha dagaalka ay kula jiraan xarakada al-shabaab gudaha Soomaaliya wuxuu noo sheegay dawladaha jaarka sida Ethiopia inay wada shaqeyn badan ay ka dhaxayso laakiin xoogaaga wuxuu ka sheegtay dawladda Kenya oo kisto ay iska jirto mugdi khaasatan xiriirka diblomaasiga inuu jira laakiin inay wada shaqeyn baxsan oo kalsooni inay ka jirin dhaxdooda waa gartay xildhibaan daahiye ma jirtaa inaad la kulanteen hay'adaha sirdoonka maadaama ujeedka ugu weyn u tagayseen ay ahayd amniga deegaanada Waqooyi Bari Kenya xamdi runta markaan ku sheego annaga lamaana kulmin qof kale la kulanay ma jiro waxaan la kulanay wixina soo dhaweey markii laga soo tago waxaan la kulanay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo annaga lamaana kulmin ninka u weynisa ama Fahad Yaasiin hadda soo aqaana ama qof kale oo mas'uul oo arrimaha aan kala hadalnay messenger anaga siyaasiyiin baan nahay haddaan la kulanay ninkii dawladda Soomaaliya midalkii siyaasiyiin u weynaa haddaan la kulanay maana u baahanin inaan la kulanno ninka u weyn sirdoonka xagga amniga anaga ma nihin dad ka shaqeeya security waxaan nahay siyaasiyiin marka runtii warka asaga waa warbeen awr waxbana kama jiraan waa gartay markii aad baxayseen madaxweyne Uhuru waxaad sheegtay inaad hore u kulanteen oo wadan kala hadlay sidii amaanka wax looga qaban lahaa bixitaankiina oo markaas aad Muqdisho ku wajahnadeen ma la socday runtii madaxweynaha hadii anaga marka sabab dad la hadli kara ma nihin laakiin waqtiga ayada aan kulanay waxaan ku heshiinay
oo asaga naftiisa uu nagu yiri socdaal u kaca Gaaris taga Wajeer taga Mandera taga arinta waan ka shirnay shirka asaga markaa kadib anaga naftaana isku imaanay waxaan ku heshiinay taariikh 6 bishan hadda maanta kowda inaan u anbabaxno Gaaris Wajeer Mandera anaga xildhibaaniinta iyo saddexda governor annagana inaan arinta ayada aan isku istaagno kharash aan si kastaba marka madaxweynaha hadalkiisa waxa ku jiray wax alla wixii amni lagu soo suuy karo maadaama annaga aan ogna runta Soomaaliland waana shabaab intee naga soo dula intee saldhigooda u yahay intee laga soo abaabula waa Soomaaliya marka anaga waxaan u aragnay taa nafteeda inay meesha ku jirto waa marka waxaan la hadalnay qaybta sirdoonka ninka u weyn dawladda Kenya arintan aad buu soo dhaweey wuxuuna yirniman yahay arinta ayada u socotaan aad baan u soo dhaweynaa waxaad kala kulantaan markaad soo noqotaan warbixin nasiya waa gartay labada dawladood Soomaaliya iyo Kenya wad la socotaa xiriirkooda madmadoow ka jira iyadoo dawladaha ay toos uga wada shaqeynayaan ammaanka guud ee gobolka ama deegaanka tira xildhibaano ah oo Soomaali ah inay inta Soomaaliya tagaan madaxweyne Farmaajo la fariistaan maxay macno soo kordhinaysaa ka qaban kartaa amniga guud ee deegaanada aad ka soo jeedaan waqooyi bari iyo guud ahaan Kenya alxamdulillah runta markaan ku sheego sidaan kugu iri shabaab meesha laga soo abaabulo ay ka soo duulaan ay ka imaadaan oo saldhigyo ay ku leeyihiin Soomaaliya dawladdaasna hawl badan bay ka haysaa meesha ayada anaga waxaan aaminsanahay labada dawladood haddii arinta amniga gacmaha isqabsadaan oo wada shaqeyn dhab ay ka dhaxdhacdo oo amniga kuwa ka shaqeeyaan labada dhinac ay wada shaqeyn iyo xiriir iyo isweydaarsi information u jiro waxaan aaminsanahay arinta ayada in la soo afjari karo anaga waxaan aaminsanahay dawladdeena Kenya counterpartkeeda ama dhigeeda Soomaaliya inay tahay dawladda federaalka ma noqon karto dawlad goboleed ama kismaayaha jirto ama meel kale ha joogto ma noqon karto maxaa sabab wax kastoo jiro xafidaadda xuduudda haday tahay mid ka bariga mid ka badda mid ka cirka waxay shuqulkeeda u yahay dawladda federaalka marka waxaan anaga aaminsanahay oo anaga naftaanada hadda aan soo ogaano waxa weeye dawladdeena waxaan anaga tala siinayna inay ogolaato inay kala shaqeyso arrimaha amniga iyo xuduudada dawladda federaalka u dhigmato dawladda Soomaaliya waxaan aaminsanahay dadka ayaga dhibkana wuu haystaa anagana wuu haystaa labada dhinac dadka degan waa Soomaali hadii wada shaqeyn furan oo kalsooni haday ka dhacdo waxaan aaminsanahay inay arinta la xalin karo anaga runtii heerka aan joogno waxaan joognaa heer federaal waxaan hadda nagama gelin inaan la kulano regional government because anaga protocol ahaan waxaan u aragnaa annaga heerka aan joogno waxaan nahay federal dawladdeena waxaan tala siin rabnaa ayaga naftooda inay sidaas oo kale ay nala qaataan oo la shaqeeyaan dawladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa gartay xildhibaan daahiya markaad fiiriso Soomaali waa ahaydeen ka sokoona deegaano waxa ka timaadeen gobolka waqooyi bari oo Kenya ah dawladda Kenya iyo Uhuru marka laga hadlayo amnigu waa dawlad weyn ma awood ma u weysa inay dawladda Soomaaliya kala xaajeysato iyada wax ka qabato adinkoo la idin soo marin xildhibaanadiina runtii horta waxaan ku sheegay anaga dawladaha waxay ka wada hadleen anaga kama hadleen laakiin anaga waxaan u tagnay anaga maana mathalaynin wasaaradda arrimaha dibadda Kenya maana mathalan anaga waxaan anagoo mas'uuliin ka soo jeeda Kenya oo arinta ka jirto meesha ay aad noo taabad yaan u doonanay tala iyo warbixin iyo wada tashi inaan soo subin soo anaga markaan socono maana mathalaynin dawladdeena Kenya anaga mas'uuliin Soomaaliyeed oo rabaan inay la soo tashadaan dadkaas luqad iyo diin iyo dhaqan iyo dhiigba aan wadaan inaan arinta kala soo tashano runtii waxaan aaminsanahay shabaab iyo arrimahooda dawladda federaalka intay ka og tahay waxa way ka badan tahay ani shakhsi ahaantay intaan ogaa ama anaga gobol ahaan intaan ognahay ama maamul kale inta ogyihiin sababta hariya habeen ayaga la xiriiraan kuwa la dagaala haday tahay askarteeda haday tahay askarta AMISOM haday tahay taageero kale ka imaatay dawladaha sida Mareykanka runtii marka anaga waxaan u socono on consultation oo informal laakiin ujeedadana ay tahay in hadda aan isku dayno naftaanada xiriirka labadooda u dhaxeeyo inaan tala waxyaalaha aan soo runtii waxa kamid inuu mugdi jiro mugdigaasna waxa lagu xalin karaa nidaamka dawliga u dhaxeeya labada dawlad in qaanuunka caalamka la raaco oo dawladdanada ay la shaqeyso
dowladda u dhigeeda oo Soomaaliya ka soo jeeda waa gartay xildhibaan daahiye marka aad Soomaali tihiin labadii wadan waa tihiin Kenyan waa tihiin dad Soomaaliyeedna waa tihiin dad Soomaalida wadankoodii labaad tagay wadankoodii tagaatiin kana waa wadankiini haddana dad xasaanad leh oo Kenyan oo xildhibaan ah oo wadanka mas'uuliyad u hayo oo sharci dejinaatiin iskiina inta u baxdeen dad Soomaaliyeed waa dhahdeen ugu tagteen madaxweynaha kula kulanteen kulanka madaxweynaha alla gasheen muxuu macno soo kordhina hadii dad socday oo dawladii markaas matalay oo wasaaradda dirsatay aysan jirin oo Soomaalinimo leh meel u tago damqinaysay dhibaatada deegaanadooda qaasatan u haysata haday ahayd farmaajo la hadalkiin muxuu soo kordhina wax ka soo keentaan xamdi horta halba ku sheeg annaga waan ku sheeg hadalkan wuxuu ka bilowday shirkii aan la shirnay madaxweynaha Kenya madaxweynaha wuxuu yiri wax alla wixii ee idinku qaad anaga waxaan ognahay runtii aqabada u weyn oo shabaab inay tahay Soomaaliya inay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dawladda inuu muddo ka jiro anaga waxaan rabnaa markii hadda aan warbixin siin doono madaxweynaha Kenya iyo amniga ku u xil saaran arintan hadda aan ku sheegay inaan si toos ugu sheegno amniga labadan dawladood waxaa lagu heli kaliya inay ka dhaxayso kalsooni iyo wada shaqeyn heer federaal ma jiraan qodobo 2-3 u yiri madaxweynaha kala hadlay farmaajo uu leeyahay waxaas lagu qaban karaa Soomaalidana ay qaban karto runtii anaga hadda waxyaalo qaarkood hadda ma sii garan koos inaan hadalkii aan ka hortagno wixii anaga aan ku heshin laakiin arinta koow uu leeyahay macnaha dawladda Soomaaliya ama anagana aan u arnay inay runtii waxa weey mas'uuliyiinta Kenya heer federaal iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya hadii arintan amniga si toos ayaga ay uga tashan karaan ka wada hadli kareen runtii shabaab waxay heli fursad badan oo marka wadankan iyo wadankaaba ay aad ugu saameys marka anaga waxaan leenahay dawladdaanada talaan ku leenahay taladan waxaan ku lahaan karnaa markaan warka rasmiga aan soo ogaan oo meesha ayada wixii jiro anaga inoo soo sheegan anagoo faahfaahin badan sii bixineen oo aad naga heli doontaan waqtiga markuu aan ku haban aad heli doontaan laakiin runtii anaga waxaan nahay ergey isdirtay oo dawladdeedana jecel dawladdaasna u arka dawlad daris oo walaalo ah arintan haysatana labada dawladoodba inay u tahay faa'iido inay wada shaqeyn wanaagsan oo hufan inay ka dhaxdhacdo waa gartay galabta markaad soo laabateen garoonka aad timaadeen waa la idinku dhagay say wax u dhaceen bal noo faahfaahi dadku waxay aaminsan yihiin in la idin xiray horta xamdi walaal nalama xirin anaga marka aan ka soo bixino magaalada Muqdisho waxaan la kulanay ninka u jooga Kenya safaaradda Kenya ninka u jooga xagga sirdoonka waxaan rabnay asagana inaan la kulanno safiirkeena jooga Muqdisho nasiib daro safiirka wuxuu ku jiray shir European Union wuxuu noo soo diray nin u jooga qaybta sirdoonka taana anaga nafteena raadino waxaan tuseyno anaga waxaan meesha u imaanay wax lid ku ah dawladdaanada ma aha wax dhibkeeni ma aha dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliyana dagaal hadda aan ognahay oo ka dhaxay malaha anaga waxaan ku tagnay nidaamkii u dhaxay dawladaha baasabooraan wadanay viisaan ugu dhuftay macnaha wax oo hoos aan wadanayna ma jirin sidaan ku sheegayna kulankaana wuxuu ku koobnaa kulankii madaxweynaha markii aan soo bixinay yaan fariimo aan ku aragnay social media la leeyahay xildhibaanadaas oo marka hore ay ku tilmaameen inaan haysideed in la qaban rabo oo airportka ay nagu sugayaan anaga waan imaanay markaan airportka imaanayna ninkii pilotka oo diyaaradda markay parkingka istaagtay wuxuu soo tabiyay uu yiri hal la fadhiyo arrimo amni baa jiraan oo diyaaradan dawladda ay hawl ay ka rabto marka qof kasta wax ka fadhiyo intii aad ka helisan khabar kale hal saac ku dhawaad meeshaan dhex fadhinay kadib haddana wuu imaaday nin baa imaaday amniga ka socdo wuxuu yiri waxaan nahay dawladdan ka soconaa waxaana wax alla wixii xildhibaan oo Kenyan oo diyaaradan ku jiro baasaboorkoodana ha soo qaataan hana soo degaan anagoo 12 baan soo degnay meesha waxaa taagnaa wariyaal fara badan iyo laamaha amniga kala duwan waxaana la geliyay airport bus waxaana la yiri baskan baad soo fuulaysan waxaan isku wareysananaa VIP launch baan tagnay waxaan noo imaaday ninka u xil saaran amniga airportka Jomo Kenyatta magaciisa ma xasuusni waxaa kaloo socday nin ka director internal security oo la dhaho Moffat Kangi iyo dad fara badan amniga ka socdaan meeshii baan tagnay waxayna dhaheen waxaan rabnaa annagoo fiirina arrimaha amniga
inaan idin baarno idinkumana baarayno meesha ay dadka kale marayaan meeshan baan idinku baarana baasabooradiina na siiya waxaad kaloo na siinaysaan qofkii lacag watana waan arkaynaa boorsooyinkiina fura runtii anaga maana diidin dad macnaha sharciga dejiyaan nahay nimankana waxaa weeye waa dadkii fulinahaya arrimaha sharciga qof kastoo waa la baaray boorsooyinka anaga waan furnay anaga naftaanada wayna baareen wixii lacag inagu arkeenna waxay dhaheen declaration form buuxiya ninka noogu lacag badnaa wuxuu weytay $500 wixii kale 10,000 20,000 oo lacag Kenya ah ama qaarkood ka yar yaan wadanay lacagihii way naga qoreen telefoonyada naga qaadeen baasaboorada naga qaadeen waan weydiinay waxaan dhahnay ma macbuus ma waxay dhahay macbuus ma tihiin bal anaga arrimahan ma sameeyaan kadib way noo imaadeen waxay dhaheen baasabooradiina qaata lacagihiina qaata waxaan idin haysanana malaha xor baa tihiin marka aan kala tago waa fasaxna marka runtii anagana lama xirin wax oo harassment ama kala oo faral xun kala xunumay subirin wixii ay subeen anaga waxaan u arkeynaa un haddii shaqadooda ay qabsadaan dhimar anaga naftaanadana oo maan isku arkeynin dad macnaha dambi galay lacagna la soo siiyay ma jirin waxaan maqlaynaa in la yiri lacag ay sitaan oo laga soo siiyay Soomaaliya warkaana waa warbeen waxbana kama jirin